السلام عليكم كلنتي wanaagsan kusoo dhow muuqaalkii koowaad ee qaybtii saddexaad oo practicalka Photoshopka taban hadii aad soo daawatay labadii qaybood oo hore aan kusoo qaadanaynay aasaaska iyo basiga ee sida loo isticmaalo toolska Photoshopka iyo qaabkii aad u adjust garaysan lahayd kalaradaada iyo wixii aad u baahan tahay waxaan gaarnay heerkii aan marka shaqayn lahayn oo caadi wixii aan soo baranay ku shaqayn lahayn muuqaalkan u horeeya waxaan ku fiirin doonaa qaabkan u set up garan lahayn documentigeena koowaad assalaamu calaykum kulanti wanaagsan kusoo dhow muuqaalkii koowaad ee qaybtii saddexaad oo practicalka Photoshopka taban hadii aad soo daawatay labadii qaybood oo hore aan kusoo qaadanaynay aasaaska iyo basiga ee sida loo isticmaalo toolska Photoshopka iyo qaabkii aad u adjust garaysan lahayd kalaradaada iyo wixii aad u baahan tahay waxaan gaarnay heerkii aan marka shaqayn lahayn oo caadi wixii aan soo baranay ku shaqayn lahayn muuqaalkan u horeeya waxaan ku fiirin doonaa saddexda qaybood saddexda design aan samayn doono hadii Ilaahay yiraahdo iyo qaabkan u set up garan lahayn documentigeena koowaad projectigan qaybtan u dameysa ee part 3ga qaybtan saddexaad waxaan ku arki doonaa iyo sanadkii iskoolka la sameeyay oo kale marka kaas saas noqonaya waxaan ka bilaabi doonaa aasaas oo kulli waxaan banaanka keensanayno malahan aan ka ahayn xabada tufaaxda inta kale inaga gacanteena ku sameynayno waxaan ku dhex sameyn doonaa Photoshopka waxaan kaloo sameyn doonaa loogada iyo posterka ka baxsan ID card marka ID card kaas wuxuu noqon doonaa isaguna mid ku base garaysan oo la xiriira labadii hore aan sameynay oo loogada isla aan u sameyn doono madarisadii markii hore aan u sameynay posterka iyo loogada marka muuqaalkan u horeeyay wax ku qaadan doonaa qaabkan u set up garaysan lahayn documentigeena koowaad si aan documentigeena u sameyno marka waxaan sameynaynaa marka u horeysa inaan meel cusub soo furano aan marka inagu hadda iyo koob bilowno saan u bilowno marka mar walba waxaan tagi jirnay file dan waxa ka sii doonan jirnay new ama control n baan isla qaban jirnay kadib baan waxa sameyn jirnay inaan halka gelino documentiga informationkiisi marka waxaan u sameynaynaa marka hore posterka magaciisa halkaas gelinayna meeshan waxaan gelin jirnay sida caadiga ahayd cabirkii marka cabirkan waxa ka dhigaynaa oo kale A4 dhinaca u dhifka waxa uu tahay markay tag tahay 12 cm baan ka dhigaynaa halkaas 12 cm bay xagga u tahay height-kana waxa weeye waa 30 cm resolution-ka badanaa 300 baa laga dhigaa maadaama documentigu yar yahay markay ay inoo soo furmo waxaan u baahanahay marka inaan sameysano xuduudii ay ku koobnaan lahayd ee documentigeena markaan qorayno qoraalkii ama ay sameynayno kalaradii background-kii oo saar lahayn waxaan sameynaynaa xuduudda waxaan ku sameysan karnaa marka inaad sameysatid isticmaashid wax loo yaqaan rulerka ama mastarada haday ka maqan tahay Windows baa tagaysaa then halkaas rulerka soo activate garanaysaa ama control iyo R baa isla qabanaysaa ku soo baxaysaa marka rulerka marka uu soo baxdo mastarada waxay ka kooban tahay labada dhinac waxay kala yihiin qaybta koowaad oo korka jirta oo xagga kore ka sameysan iyo qaybtan koonaha oo xaggan ka sameysan marka waxa iska hubisaa mar walba mastaradaadu inay tahay maadaama centimeter isticmaalaynay inay centimeter ku base garaysan tahay waxa saad u ogaato waxa tii kartaa right click baa wax siin kartaa isla mastarada then halkaas aad waxaad ka dooranaysaa wixii mastaradu ay ku indicate garanaysaa ama ku cabirayso documentigaaga hada pixel doorato pixel waa laga dhigaa ama inches centimeter millimeter taban adiga iyo choice-kaaga ay ku xiran tahay qaabkaasaan mastarada u soo saxan karnaa hadaysan noo ahayn cabirkaan u baahnay noo soo saarayn marka si aan u sameyno waxaan u baahnay inaan soo jiidno mastarada dhinacan tagga waxa loo isticmaalaa in cabirahaan lagu sameeyo labada koone ee tagga dhinaca jiifkaana waxay u sameysan tahay labada dhinac marka waa soo jiidaynaa saa u soo jiidno waa soo qabanaysaa waxa keenaysaa koonaha u sheeya waxaan ku soo qabanaynaa waa move toolka mar labaad baa soo qabanaysaa markana koonahan aan keenaynaa mar saddexaadka kor baa ka soo qabanaysaa iyadana kor baa keenaysaa mar afraadka ilaa iyo meesha u dameysa mastarada waxaan u set garaynaynaa waxay tahay qoraalka markaan dhow sameynayno inaan helno xuduud macnaha hadii hadhow wixii la daabacayo wax laga yaabo in printerka meel soo saaro ay qayb baxdo ama go'daba si ay marka ay xuduud u yeelato inaad mastarada isticmaashid wax badan bay ku fududeynaysaa marka intaad set garaysano waxaan u baahnaa inaan ku darno marka wax loo yaqaan bleed waxa weeye cabir yar oo inta design-ka caadiga aan ahayn laakiin dheeri ah oo ku ilaalinaya inaan cabirkaagi wax maxaan ku dhahay dhaawac soo gaarin oo damage ku dhicin marka saan ka u sameeyno wax tagana image dan waxa ka dooranaa convert size
canvas marka ku dhufatid wax ku soo baxaysa meel cabir la gelinayo marka halkaas waxaan ka dhiganaa 1 cm oo dasayna 22 xaggana waxaan ka dhiganaa 31 go'taan halka cabirada gelino meeshan wax ka dooranaa colorka backgroundka isla marka cadaan buu noo ahaa cadaan baa ka dhiganaa marka inta gelino dan baan okay dhahaynaa hadaa si fiican u fiirsan masradina 1 cm oo dheeriya ba fuulay marka 1 cm oo dheeriya wuxuu noo suurta gelinayaa mar walba inaan inaguna xuduudeena ilaalino aan wax ku dhisan gelinaynay maxaan ku raahday dabcan colors waa ka bixi karaan laakiin qoraalka iyo waxa muhiimka inaysan banaanka uga bixin maxaan ku raahday cabirkeena masrada inoo samaysan kaasan marka ku set garaysana documentigeena dhinaca layers ka fiirisid waxa inoo samaysan oo hal layer inoo ku ah hooyo backgroundka san logo uga saarno sida caadiga ahayd click baan siin jirnay kadib baan waxaan u bixin jirnay magacii background baan gelinaynaa tan magac gelino okay aan dhahno dabcan backgroundkan saas inuu ku sameeyay yahay waxna waa ka bedeli karnaa aw log baa saarnaa logo waxaan uga qaadnaa click baan siinay then magac baan u bixinay qaabkaas uga baxay marka backgroundka waxaan u sameeynaa color khafiifa oo attractive waxaan gelinaynaa gradient fx baa tagaysaa ama wax halkaas ka dooran kartaa oo gradient ka soo gelin kartaa ama wax ka dooran kartaa toolska halka wax ka helaysaa gradient toolka oo gradient tool waxa soo doonaysaa inaad click soo siisid iyo inaad g taabatid labadaba waa choice ku haystaa gradient marka soo doorano isla marka waxa step ku xigan qaadana uu yahay inaan doorano kalaradii ee meesha inoo noqon lahayd labadii color marka doorano kan waxa ka dhiganaa blue kan kore kan kalena waxaan ka dhigi doonaa cadaan baa ka dhiganaa marka kan oo kale blue baa ka dhiganaa bluega markaad colorkaaga dooratid baa okay dhaysaa dabcan labada color waa laba color oo isqaadan kara waa inay yihiin markaad laba color soo dooran hadaan madow iyo blue soo doorto wax maxaan ku raahdaa xoogaa wax noqonayaan iska hor imaanaya marka mar walba inaad doorataa laba color waxay yihiin isku soo bixi kara marka saan u sameeyno waxaan ka bilaabeynaa dhinacan hore baan soo bilaabeynaa dan waxaan wadaynaa ilaa dhexda oo aad u drag gareynaa meeshaas kala geynaa ku ali shift baa qabanaysa darteed inuu ku tooso ilaa meelahaas kala geynaysa qaabkaas uu kugu sameeyay marka oo halkaas baad wax saas uu backgroundkaaga hadda wax ku yahay background set garaysan oo dhameystiran kadib waxaan hore ka galeynaa inaan ku soo darno hadaan soo fiirno documentigeena posterka wax saaran waxaan ku raadinaa halka color baa saaran kana color kale kadib baa wax saaran wixii kale oo dhameystirna marka intaas waxaan ku dari doonaa hadii la yiraahdo qortaan set garayno line-ka wixii information-ka kale oo dhameystiran wax ku dari doonaa muuqaalka ku xiga mar walba waxaad maskaxda ku haysaa inaad sida loo set garanayo mastarada isticmaashid cabirkaaguna cabir saxan u yahay mastaradana iyo cabirka aad isticmaalaysan mar walba isla soo dooratid mastarada taala right click siisid kadib aad saa u set garaysid cabirkaagi marka waxaan ku daraynaa laymankii wax saaranaa line-ka orange-ga ah oo halka kaaga muuqda colorkaas halkaas iyo colorkan kafeega labadaas aan ku daraynaa saan ugu daro marka waxaan tagaynaa toolska wax kasta dooranaa rectangle toolkaas baa waxaan isticmaali doonaa color kaas oo kale hadda madow weeye laakiin waa ka bedelaynaa saan marka uu jiifisaan u jiifino marka waxaan qabanaysaa isaga dooranaysaa horta backgroundka naga loo garay isaga dooro kadib halka loo ka saar si uusan wax movement aan ugu sameyn marka saan u qalloocino waxaan tagi karnaa wataan isaga doorano waxa tagaysaa halkaas waxaan ku dhahay transform controlska then baad wareejinaysaa ilaa iyo inta la rabtid ku qaloocsamo baad waxaad geynaysaa meesha la rabtid koonahaas oo kale ahayd dabcan meesha saas buu samaysnaa then baa wax saaranaa confirm qaabkaas uu colorkiina ku saaran yahay kadib baan wax ka bedelaynaa colorka isagan click siinaynaa kadib baa saa u dooranayna waxa kale oo isaguna la socday oo meesha ku jira isla colorkii kale isagana saan ugu darno dabcan wuxuu ahaa wan malaynayaa kafee buu ahaa kafee markaa soo dooratid saad uga bedeshid colorka waxa tagaysaa isaga dooranaysaa kadib saa click siin kartaa sida meesha aad ka raadsanaysaa colorka u baahan tahay then baad saad color ku soo dooranaysaa isagana saan u qalloocino saan click siinayna kadib banaanka uga yar baxayna falaarta qalloocda marka inoo soo baxdo transform controlska korkooda then baa saa u qalloocinaysaa ilaa inta la rabtid keerafka horta dhamaystirtid then baa meesha u baahantay geynaysaa waxaadna ku move garaynaysaa mar walba move toolka
طبعا gortaan kalaradiisa u hagaajisano haddaan ku noqono boosterkeena wuxuu kala ka koobnaa isagana base-ka ahaa oo watay kalar kaloo khafiif halkaa kusii jiro red baa jira isla kalarkaasaan u samayno waa mid tufaax camal u soo dhow isagana isla waxaan soo qaadanaa midka circle-ka ah circle markaa soo qaadatid waxaad ku kala bixinaysaa meeshaad rabtay inuu kuu galo goortaad ku aadisid waxaad samaynaysaa markaa waxaan layerkan u baahnay layerada ugu horeeya inaan hoos marino oo geyno ku xijino buluuga backgroundka buluuga saan ugu xijino marka waxaan qabanaynaa control iyo left bracket baan isla qabanaynaa hal mar waa degaya mar labaad ku celisid uu sii degaya qaabkaas u soconay halkaa markuu tago dabcan waxa ka hooseeya qora wax way backgroundkii mar rabno inuu backgroundka haddaan ka hoos marino naga qarsoomaya marka background ka hoos maro mar rabno waxaan rabnaa inaan khafiifino qaabkaan u khafiifinayna waxay ahayd opacity-gaan yaraynaynaa opacity-gaan tagaynaa kadib baan halkaa waxaan ka yaraynaynaa opacity-ga waa khafiifinaysaa ilaa meesha aad ugu dambaysa aad u baahan tahay baad geynaysaa tusaale ahaan 10 oo kale aan geyn karnaa ama waxaan ka dhigi karnaa 15 tirada caadi oo gelin kartaa daartid then dabcan background-kiina waa kugu jiraa intaasu marka waxay ahayd background-keena oo base ahaan background-keena intaasay ka samaysnay haddaan ku noqono meesha boosterka wax kaloo background waxaa la socday baalahaas buufinada halkaa kasoo taagtaagan madaxyada kasoo jeedaan iyagana waa ku daraynaa qaabkan ugu darayna waxay tahay isla shape tool baan isticmaalaynaa shape-ka wax soo qaadanaysa kan oodaa kadib qaabkaas kale u samaysnaa kalarkiisa orange uu ahaa isagana saas ka dhig xoogaa hoos soo kaxay isagana markaad kalarkii doorano ku kala bixi waxaan kala u baahannahay marka kalarka si fiican hadda u fiirisid maxaan ku dhahay dhinac baa waxay tahay waxa ku jirta cadiinkaasaan uga saarno saan u gelino waxaan u baahannahay isaga inaan koobino kadib saa u kala bixino meelahaas oo kale ku aadana cadiinku then okay dhahdid markaas kaas kalarkaaba waxaan ka dhiganaa kalarkiisaan khafiifinaynaa waxaan ka dhiganaa tusaale ahaan cadiin xoogaa usoo dhow then okay baan leenahay labadii color markaan isku xijino labadii shape waxaan baahnaa inaan isdhex gelino marka oo isla color kan kusoo wada koobno saan isu dhex gelino waxay tahay labada shape waa inay isku xigaan kadib waxaan qabanaynaa alto keyboardkeena waxaan dhex tagnaa labada color hal mar baan waxaan siinaynaa markii fallaartaas inoo soo baxdo hal mar click siinaynaa qaabkaas baa waxay noo ku samaysan colorkii isla colorkii uu dhex jiraa haddii kalena waxaad dooran kartaa inaad inta select garaysid intaas baad markaasi gooniya u bedeshid waxaan ku dhahday colorkooda oo saas aad ku samaysid marka si aan u dhamaystirno waxa kale la socotay xariiq kore oo dhuuban xariiqaasaan ugu darno iyadana kalarkeeda noocan kasoo dhig kusoo jiid waa shape baan isticmaalaynaa weli then goortaad kusoo aadisid baad sii dayn kartaa qaabkaas baan waxaan u samaynaynaa waxaan ku leedahay buufinkii marka si ay isugu keen wada socdaan oo wax wada socdaan oo ku noqdaan waxaan u baahannahay maxaan isticmaali jirnay group baan isticmaali jirnay group uga dhigno inoo select gareey 1 iyo 2 iyo 3 saddexaas ku xigay ahaayeen control G d markaas isugu dar iyagana waxaan u baahnaa marka koonahaas kusoo bilaabmay halka mid baa olla halkana isla asagoo yar baa ku jiray qaabkaas oo kale uu samaysan halkaas ku jiray halkana mid kale ku jiray qaabkaasaan u sameynaa xabad markaan sameyno dan inta kale aan badsanaynaa waxaan sameynaynaa marka kulligood isku group baan ka dhiganaa oo select gareynaynaa kana dooranaysaa shift baa haysaa kana ku daraysaa adoo shift haysaa kan ku daraysaa then inta kalena ku daraysaa shift click then goorta isku wada dartid control G baa dhaysa hal group bay isku noqonayaan marka buufinadu oo dhan qaabkaas ay u sameysayeen waxay leeyihiin wax wada socdo hal group haddii aad u baahan tahay marka inaad isku wada dhajisid hal mar iyagoon group ahayn waxaa qabanaysaa control iyo E qaabkaasi marka waxay u yihiin wax hal object oo kulligood isugu dhagan backgroundkii marka intaas baan kusoo koobaynaa muuqaalkan way ugu talagalay inaan background ku set garayno
muuqaalkan muuqaal ku xiga wax ku arki doonaa oo si gaar ah u sameyn doonaa loogadii oo aan kasoo bilaabayno meel bannaan iyadana qaabka ugu fiican ee ku fahmi karto waxay tahay inaad daawatid kadib marka aad adigu gacantaada ka samaysid oo wixii isla sidaa u samaysid